farmaajo awalna xilkiisii waa dhamaaday madaxweynuhu maana aqoonsaneen waa sheegnay maanta waa gacan ku dhiigle waa dagaal ooge oo waxay dhihi jireen mujri xarb waxaan maxkamad adduun ahayn iyo cadaalad dalka gudihiisa oon kula macaamalayna maba jirtaba saaki laga bilaabo waa dambiile mudan in marinkiisa la marsiiyo waxaa kaloo intaa dheer in maleeshiyaadkiisa madaafiicdii ay noo wadeen iyo xabadihii ay nagu ridaayeen ee garoonka diyaaradaha noo dhaafiyeen dhinaciisa oo hadda ay civil aviationkii ay gubanayso naloo sheegay weli waxay u ooman yihiin dagaalka weli waxay u ooman yihiin dhiig inay daadiyaan weli waxay u ooman yihiin dad rayada inay dilaan oo xuquuqdooda u diidaan laakiin waxaan u xaqiijinaynaa asaga iyo maleeshiyaadka amar qaadataba inay maalmo yar u harsan yihiin markii la marinkooda la marsii lahaa way fursad ayay haystaa wiilasha maleeshiyaadka ayna soo xabadeeyey ee joogay jegboontiyada aan marayna halhalaan u naqaanaa fursaday haystaan ay ku toobo keenaan oo ay kala taliska amarkiisa ku diidaan oo ay dadkooda soo raacaan oo dastuurkii dimuqraadiyada u heliyaan weli fursaday haystaan laakiin ninkaan fursadda haysanin waa keligii talis farmaajo shacabka Soomaaliyeed iyo reer Muqdisho dad la casii kara maaha dad la handadi kara maaha horaa loo cabsii waayey Etoobiyana cabsii waayey taangiyaal wata argagixisaa cabsii weysay dadka qarax ku laysa wuu riyoonayaa ina farmaajo hadduu isleeyahay dadkaana cabsi gelinaysaa oo kaa baqaaya mudaharaadka wuu soconayaa ilaa ina farmaajo uu ka baxo xilka uu ka dego hal waxaa maanta u fadhiyaa meesha inaa maqlo ninka sheeganaya ra'iisul wasaaraha ee xafiiska ku jira ina rooble soo maahayn warkiisaan rabaa inaan maqlo waxaan rabaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed qoorqoor warkiisa inaan maqlaan rabaa waxaan rabaa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe hadalkiisa inaan maqlaan rabaa waxaan rabaa guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish inaan warkiisa maqlaan rabaa hadday dadkan matalayaan hadday deegaankan matalayaan maantay kala caddaanaysaa waxay soo saaraan xalayto raggeenan halkan taagan waxaan qabanay shir jaraa'id shirkaas jaraa'id wuxuu ku saabsanaa in labadii madaxweyne ee madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ka horreysay iyo guddoomiyihii baarlamaanka ee Soomaaliyeed hore saddexdooda lagu weeraray hoteelkii ay deganaayeen iyadoo lala damacsanaa dil maanta waxaa ku xigtay in murashaxiintii iyagoo bannaan baxaya oo adduunyadu ay fiirsanayso la soo xabadeeyey xabadihiina
الله عافيه أنت دمتنا الله ونحرست دت صومالية يكون حيلوبين إصلاح حبده إيش الدقالة ودلك صومالية أولها وها أيربوركا حبده أننا نلكسور رداي أي أيربوركي مدافيعة أي أيربوركي مدافيع ذي يكون ردين أي جبنا أي هذا صومالي وحن رواينا المرخاتي قشطو ما أنت ماشي أن تاجنا هاي أنا جو رئيس الوزراء صومالي سو كم الدقن صومانا دهين هدي اللي يسكت ضايين حكم لبابو هدي دور شذا أن هشيس لقول نقول هدي اللي يسكت ضايين كلجي تلس نقول إن دبعت هذا نوده حيسو أبي إنك أن أمد الصوماليات وتنازلي وحن شعب كصوماليات وشاقي إن أنا نربين إن أنا قيب كنقضو دبعت هذا أمد كوسو صعطة هدي طريقا لقول سي صعدو ماشي بان تاجنا هاي أن كدقي أنا جو حكم كجوجا يا أنا جو دبدك ماشي هذا الدل كان يتاجي هاي دولة وقت جيد الدماضي مدحوين وقت جيس الدماضي وأي حبت كلي وقصوهرتي دنيا النجو احترامي ما يسو صومالنا كهر مر ما يسو ماشي هذا ومد الصومالية يتاجن تاي هل حل كلي أي لا ضاي أنت ربطين يدلك أطرطا أنت أن ربين إن دلك نهجاجو وأنا كهرتك تو أنت ربطا إن دلك لا تران تراجو أنت ربطا إن أمد الصومالية دي دلني يرد الصومالية دي مستقبل وافي هي شان وأنا كهرتك تو أنت آمنسن فكر كاس كسوهر جدا وحربنا فرماجنا وشيغنا dadka Soomaaliyeed ayaga hari doona adiguna waa tagi doontaa waliba wada xun oo aad iyo aad u xun ayaad ku tagi doontaa awal waxaan dhihi jirnay madaxweyne farmaajo maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu leeyahay hadii uu xilka ka dago sharaf inuu madaxweynihii hore ahaa iyo xildhibaan qaran inuu ahaa hadda sharaftaas xataa ma heli doono sharaftii madaxweyne Soomaaliyeed horena ma heli doono sharaftii xildhibaan qaran oo abadi ahna ma heli doono wuxuu ku dambeyn doonaa xabsi wuxuu ku dambeyn doonaa meel xun oo fool xun oo shacabkiisii iyo dadkiisii uu xasuuqay shalay ninkii ra'iisul wasaaraha ka dhigo madaxweynihiisii ahaa labadii madaxweyne ee asaga garbaha qabtay ee taageeray shacabkii Soomaaliyeed iyo dadkii Soomaaliyeed sida dimuqraadiga ah magaalada Muqdisho ugu soo baxay inuu maanta xabad ugu bedelo ayaan darro aad iyo aad u weyn waay farmaajo waxaa la doortay 8 February hotelkan Jazeero aan joogan anigu waxaan kula kulmay 9 February annagoo madaxweynayaashii dawlad goboleedyada xilliga jirnay ah ayaan hotelkan kula kulan ila taliyuuna yiri waxyaabahan kula taliyay qodob kamida waxaa kamid ahaa waxaan ku yiri madaxweynuhu shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan sida ay xalay ku soo dhaweeyeen waad weyn waa arkiis gaar ahaan dadka Muqdisho joogahay siday ku soo dhaweeyeen waa arkiis mustawahaas lagu soo dhaweeyay iyo heerkaas lagu soo dhaweeyay hoos ha uga dhicin maalintii ayada ay taladii aan siiyay iyo maanta meesha uu joogahay farmaajo waa arkaysaa dadkii xaq sida ogeyd u soo dhaweeyay oo ku faraxsanaa in doorashadiisa ku faraxsanaa hoggaankiisa iyo hoggaaminimadiisa ayuu maanta wuxuu ugu bedelo abaal uga dhigay inuu xabad iyo dil ayuu abaal uga dhigay waxaan aaminsanahay siyaasadda Soomaaliya farmaajo si xun buu u soo galay meel xunna uu ka soo galay siyaasina ma aha hoggaamiyana ma aha muwaadinna ma aha waa nin dawladnimada iyo siyaasadda si qaldan u fahamsan xoog iyo caburin iyo dictatornimo u fahamsan waay insha Allah ta'ala siyaasaddan wuu ka bixi doonaa talada dalka iyo hoggaanka dalkana wuu ka bixi doonaa annagana saacadan laga bilaabo waxaan sheegaynaa doorashana wala hadal kala gali mayno lana tartami mayno asna tartami maayo nin dambiilo oo in la soo xiro oo maxkamad la soo taago ay u dhiman tahay oo kala away